Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Hassan. Jina ya mtaa naitwa Uro. Takuongea sauti ya vijana wa devolution. Vijana tumewachwa nyuma sana. Hii mwaka ya 2022 tunataka mabadiliko. Na tunaona mabadiliko iko kwa mkono ya Bashir Yusuf Haji as a governor. Aniga ku hadlayo codka dhalinyarada Garissa oo ku shaqaana Bashir Haji Yusuf oo shaqaane oo namadna oo heelanahay oo ku faraxsanno istaagay maalaha hore safarta hore soo istaagay wax yar machine naga noqday hadana taamkana oo heelana waana rabnaa inuu noo soo galo ninkaas waa nin dawlad fahansan oo ciidanka ahaan jilay military oo dawladda kala ka saay dacwashaad ku doo ka saay oo hoggaanka u dhiiban karno oona noo qaad karo hoggaankanay governornimada oona ku dhawaatoone 5 sano la soo dhaafay inta sano la soo dhaafay oo ku rafaasaneen oo aniga ka hadlaayo youth ilmaha dhalinta Garissa codkoodan ku hadlaayo marka saas ogaanaysiin ninka waan support gareysana waana ku kalsoonahay safarta insa galno kursiga u helo ku kalsoonahay waana ku hawmeeyna intuu helo kursigan waana jecelnahay intuu helo maxalena mudana sa dhawaw kursi ku soo dhawaw waana ku faraxsanahay hadalka ereyana oo saajeesite oo codsigan oo noo soo dhigatay waan ku faraxsaneen waan la'aan kursiga wax aamino sida oo kale lagu soo fadhiisto waan la'aan alxamdulillah kuleen ku soo dhawaw waana ku jecelnahay dhalintu ay ku jecel yihiin meelayga fadhina toon kula sheekaysanaa waxaan dhanaa ninkan aan qaadno gudaansa gilno si dhalin ulno Garissa marka mudana maxaan kuleen ku soo dhawaw gacmo furan waan ku jecelnahay oona ku jecelna boqol jeer aan kuleenahay tunauliza watu wa Garissa kama wangechagua Governor Samawadal. Governor Samawadal waan dooranaynaa. Sababta aan u dooranayno waxay tahay governoryaasha kale oo soo aragnay hadda kan ayaan ka wardoonay governor cusub tuna vote governor miya okay waa dooranaysan Soomaa maxaa u dooranay sababta u dooranaysan waxaan u dooranay waa qof cusub hadda macnaha kuwa kale waan soo aragnay qofka cusub inaan doorano waayo macnaha soo dhaweynaa magacaaga ana magacayga Abdullahi Bishar Gure maxaa ka shaqeysaa gaada ka shaqeeyaa mashallah Kwa majina naitwa Moses Mwangangi. Na nimekaa hapa Garissa for a long time, niko na around 13 years nikikaa hapa Garissa. Maendeleo imekuwa hivi tu, lakini Bashir najua ataweza kufanya maendeleo hapa Garissa. Mimi nafanya kazi ya bodaboda, lakini najua atashukisha bei ya mafuta kuna venye imekuwa bei kali, lakini najua ataangalia maneno. Kwa hivyo Bashir he has been a major general for a long time. Kwa hivyo kitu kingine najua ataweza kuweka security itakuwa tight kabisa juu watu wa bodaboda kuna wengine tunapata habari kuwa wameuawa wametupwa kwa mtotana hapa, lakini najua ataangalia maneno sana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan maanta meesha u imaanay inaan ogaano macnaheena Governor Samawadal dooran lahaydeen. Governor Samawadal soo istaagay markana diyaar u tiin. Yes, diyaar u nahay insha Allah. maxaa ugu tii diyaar maxaa soo ku dooran sababta waxa laga yaabaa inuu isbedel keeno oo ku hor dhaama laga yaabaa okay adin maxaa ka shaqeysaa aniga tashilaaya magacaaga Ibrahim mashallah inta Soomaaliland ku yeedina bo mimi naitwa Musevule, mimi ni mwenyeji wa Garissa County. Safari hii tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka ujao inshallah tukitarajiwa sisi tunaunga mkono Governor Garissa County Honorable Governor ako saizi Honorable Ali Bulu Qorane, kwa sababu Governor ameleta usalama mingi, watu walikuwa na uana, lakini sasa Garissa imekuwa vizuri. Ile mambo ya kuuana balambala huko wapi imeisha. Sasa mimi maoni yangu tabadia kura kwa governor ambaye ako kwa madaraka saizi, anaitwa Governor Ali Bulu Qorane.
na chama yake chochote anasimama mimi napatia kura, kwa sababu Garissa ukame ni amri ya Mungu, lakini ile watu walikuwa wanapigana huko Dadaab huko wapi nini imeisha. Kwa hivyo ile usalama ameleta governor ni mzuri sana, na alijenga hapa hii mali ya hii roundabout, na alijenga Qorei, na alijenga vitu vingine vizuri sana. Na mimi kwa vile maoni yangu, kwa vile mimi ni mwananchi wa Garissa, tena mimi ni mwalimu, mimi naunga governor ambaye iko mamlaka zaidi nirudishe. Ani waa Cabdiraxmaan lidhaha oo ka tirsan dhalinyarada reer Garis ama dadka reer Garis. Wallahi waqtiga la joogo horta waqti adag waay. Macluul ayaa jirta, waxaa jirta awaara ba'an baa jirta, dadku way iska rafaasan yihiin. Dadkii har rafaadaane ilaahay ma rafaadka bixin karaa, laakiin markasta waxay rabaan dad garab taagan. Maxaa dad bay soo doorteen dadka inuu garab taagnaado, waxay u baahan yihiin siya hil iyo hoob la garab taagan. Goos ayaga dad jid bay leen bay galeen, orax bay istaageen, wax bay doorteen. Ha doortaana maxay ku doorteen waay in hadhow wax la qabto. Tii hadda lama arko, haddaan la arkinna waa in la helo qof dad samate bixin karo. Hadhow hadduu dhib dhaco, macluul dhacdo, tan oo kale ilaahay ma sababee ay soo noqoto, nin u helna dadkiisii wax siini karo, garab taagnaani karo. Wallahi qofkaas kulley yadii Allahu aclam, laakiin waxaan rajaynaa inuu noqdo Major General Bashir Yusuf Xaaji. waxaan leenahay Major soo dhawow, gacmahan ku soo dhawow reer Garis. adoo may saayid kugu baahan yihiin maanta kale inuu samata bixiyo, qof aan adii ahayn ma samata bixin karo. Major General Bashir, welcome. We have endorsed retired Major General Bashir Haji Yusuf as the governor of Garissa for 2022 elections. We have welcomed the move by the Samoal community, who have unanimously agreed to endorse the governor. Now, for the last 10 years, devolution have not been working for Garissa. So we are now getting a new man at the helm for 2022 elections, who is going to change the face of Garissa. So we are saying welcome, General Bashir Haji Yusuf. He has the support of Garissa residents. He has the support of all people who are in Garissa. So we are welcoming that move, and we wish him all the best. And also, I wanted him to take good care of 3 issues: health, education, and also water. Those are the priorities for Garissa residents as of now. So if he takes care of those 3, then I think 2027 is going to be re-elected again. So we are saying welcome, Governor, 2022. It's your time. Leo tumezunguka Garissa na tumeinterview watu wengi sana. Tumewauliza kuhusu wanataka governor gani ama wanatakaje, and they said watu wengi walikuwa wanasema tunataka huyu, walikuwa na differ in opinions. So mimi tunataka niwashauri watu wa Garissa wachague mtu ambaye ako na interest yao kwa moyo wao, ambao atawajali, ambaye atakuwa anaangalia maslahi yao, mtu ambaye hawezi wasaliti, mtu mwenye hawezi watupa. Hiyo tu ndio mimi advise watu wa Garissa, mtu mwenye ataangalia walemavu, mwenye ataangalia wamama, ataangalia vijana, hawezi angalia tu maisha yake. So tuchague a good governor this time.